Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadeel kusoo dhawaada channelka magaciisu yahay AB Tube channel oo aanu kusoo gudbin doono koorsooyin kala duwan oo caafimaad isla markaana ku bixi doono luqadda afka Soomaaliga oo maqal iyo muuqaalba leh. Koorsooyinkan ayaa noqon doona kuwa xiriir isla markaana usoo geli doona si maalinle ah oo aanu kusoo tabin doono afka Soomaaliga si ay uga faa'iidaystaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka barta xirfadaha caafimaadka. haddaba waxaan ugu horeysiin doonaa insha Allah oo bilo noqon doona kooraska magaciisu yahay antenatal care. Antenatal care haddii aynu fasiraad ka bixino waxa weeyaan adeega la siiyo hooyada waqtiga uurka ay leedahay ama daryeelka caafimaad ee ay hesho hooyada waqtiga uurka ay leedahay. waxaan isku dayi doonaa inaan faahfaahino ama aynu marka hore hordhac ka sameyno oo introduction aynu ka sameyno kooraskan iyo guud ahaan buuggan oo noqon doona mid aad u muhiim ah isla markaana faa'iido weyn u yeelan doona haweenka Soomaaliyeed ee uurka leh oo inay ka faa'iideysan karaan. marka laga tago ardayda iyagu ku jira fiilka caafimaadka ama barashada caafimaadka ku howlan, antenatal care ama haddaynu si kale u dhigno waxaa la yidhaahdo ANC waa daryeelka ama adeega ama caawinta la siiyo ee loo sameeyo hooyada waqtiga uurka ay leedahay. sidaa awgeed waxaanu eegi doonaa si aynu u fahanno muhiimadiisa iyo adeegkani waxa uu yahay inaynu introductionka ama hordhaca buuggan soo qadino marka hore, kadibna aan guda galno isla markaana aan bilowno duruusteena oo noqon doono kani kii ugu horreeyay. waxa aynu eegi doonaa qiyaasaha iyo sidoo oo kale waxyaabaha ay ka diyaarisay hay'adda caafimaadka u qaabilsan adduunka ee loo yaqaano WHO dhimashada hooyada ee maalinle ah adduunka oo dhan iyo sida oo kale sanadle iyo sababaha keena dhimashadaas noqon doonta ama aynu ku tilmaami doono inay maalintiiba dhacdo sanadkiina ay dhacdo. sida ka muuqata qoraalka, according to the WHO estimates more than 1,500 women die from pregnancy or childbirth related every day. sida ka muuqata ama ay qabto qiyaasta ay sameysay hay'adda caafimaadka u qaabilsan ee WHO in ka badan 1,500 oo haween ah ayaa dhinta oo u dhinta xaalado la xiriira uurka iyo dhalmada maalin kasta ama everyday. waa qiyaas aad u badan marka loo eego adduunka oo dhan inay 1,500 oo dumar ay dhintaan maalin kasta xaalado la xiriira uurka iyo dhalmada. annually about 500,000 maternal deaths occur worldwide. sidoo kale sanadkiina 500,000 dumara ayaa dhinta oo dhimashada ay ka dhacdaa adduunka oo dhan, and most of these deaths sidoo kale dhimashada inta badanna are developing countries waxay ka dhacdaa wadamada soo koraya. most common causes about 80%. inta badan dhimashadaas qiyaastii 80% of maternal mortality in developing countries ee ka dhacda wadamada soo koraya. dhimashadaas aan soo tilmaanay ee maalintiiba ah 1,500 haween, sanadkiina 500,000 ama 500 ee haween ah. inta badan waxay tahay 80% mid ka dhacda wadamada soo koraya. waxyaabaha sababan waxaa ka mid ah inuu eegi doono tusaale ahaan unsafe abortion, hemorrhage, eclampsia, infection and obstructed labor. waxaa loo yaqaano unsafe abortion ama ilmo soo ridid ama ilmo la soo saaro oo aan soo ridin qof aan xirfadle ahayn ama loo soo rido hab aan ammaan ahayn baynu odhanaynaa unsafe abortion. hemorrhage oo isaga aynu odhan karno ama aynu ku tilmaamayno waa dhiigbax. dhiigbaxaasna marar badan buu dhacaa dumarka xilliga ay ku jiraan xaaladda uurka ee dhalmada, oo xilliga uurka ay leeyihiin dhiigbaxan uu ku dhacaa, marka ay foolanayaan ama ay dhalayaan uu ku dhacaa, sidoo kale dhalmada dabadeedna uu dhacaa. noocyo badan buu noqdaa, insha Allah xagga dambe aynu ku faahfaahin doonaa. eclampsia oo ka mid ah nooc ka mid ah dhiigkarka haween ku dhaca waqtiga uurka isla markaana cadaadiska dhiigga oo kor u kaca ayaa la eclampsia. infection ayaa iyaguna jira ama caabuqyo kala duwan oo dumarka ku dhaca, ha noqoto xubnaha taranka, ilmo galeenka iyo dhiigga inta midka doonta ha noqotee. and obstructed labor iyo sidoo kale foosha oo istaagta waqtiga haweenku ay leeyihiin uurka oo ay calashan ka gudbeen ilaahdo waqtiga haweenku ay foolanayaan ayay dhacdaa obstructed labor wax loo yaqaan. described in detail either in this unit or the next one. waxaanu ku faahfaahin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo cutubkan iyo kuwa kale intaba. either
avoidable or treatable. waxaan ka hadlaynay 80% dhimashada dhacda ee waxyaabaha kala duwan ee tilmaana sheegaan ayaa waxay kuwa avoidable ah ama laga hortagi karo or treatable ama la daweyn karo. haddaba the goal of antenatal care are to have a healthy mother and healthy baby by monitoring well-being of both the woman and her fetus during pregnancy and helping them make a smooth transition to labor and delivery. hadafka daryeelka ureydu waxa uu yahay ama goolkeenu waxa uu yahay to have healthy mother inaan helno hooyo caafimaad qabta and healthy baby iyo sidoo kale ilmo caafimaad qaba. taa macnaheedu waxa weeyaan hooyo caafimaad qabta ayaa dhali karta ilmo caafimaad qaba by monitoring inagoo monitor garaynayna oo la soconayna the well-being of both fayoobaantooda labadaba waa hooyada iyo ilmaha woman and the fetus hooyada ilmaha weeyaan labadaba la soconayna fayoobaantooda ama fayaqabkooda during pregnancy and helping xilliga uurka ay leeyihiin baan la soconaa weeyaan macnaheedu fayoobaantooda ama fayaqabkooda iyo caafimaadkooda. sidoo kalena help them waxaan ka caawinaynaa waa ilmihii iyo hooyadii make smooth transition inay si fudud ama si sahlan uga gudubto labor and delivery waa hooyadii ilmihii labaduba ay uga gudbaan si fudud foosha iyo dhalmadii. to achieve this goal haddaba si loo gaadho hadafkan ama yoolka si loo gaadho your role providing optimal antenatal care at the hospital and healthy care centers or in the home. si loo gaadho hadafkan ama goolkan ama achievementigan waxa uu yahay doorkaagu ama doorkeenu xirfadle ahaan marka laga hadlayo calashan qofka xirfadlaha baa laga hadlayaa qofka xirfadlaha ahaa doorkiisu wuxuu yahay bixinta adeega ureyda oo fiican oo ka bixi kara hospital iyo sidoo kale health center xarumo caafimaad or in the home ama guriga laftiisa. macnaheedu waxa weeyaan taladii ay hooyada uurka leh u baahneed waxaan ka bixin karnaa hospital xarun caafimaad iyo sidoo kale homes ama guryaha waan ka bixin karnaa. macnaheedu waa sida sababta waxa weeyaan haddii hooyadu ay caafimaad qabto isla markaana la sameyn karo la haleeli karo ama ay jirto in la sameyn karo home visitka wax la yiraahdo ama guryaha lagu booqan karo macnaheedu waxa weeyaan waa lagu caawin karaa sidoo kale waa lagaga dhalin karaa hooyada guriga. laakiin waxa ugu fiican waa maxay inay xarun caafimaad ku dhasho. waxaynu intaa kaga soo gudbaynaa oynu ku tilmaanay hordhicii guud ee buugga. haddana waxaan eegi doonaa chapterka koowaad ama cutubka koowaad oo noqon doona planning antenatal care sida loo qorsheeyo ama loo diyaariyo adeeg bixinta caafimaad ee xilliga uurka haweenku ay u baahan yihiin. adeeg bixinta caafimaad ee xilliga uurka haweenku u baahan yihiin waxaan isku daynaa intii karaankeena ah inaan bal Soomaali ku tilmaano ama aan ku soo hoos qori karno walow ay adag tahay inaan Soomaali qorno ama aan turjino laakiin afka ayaan ka sheegaynaa qoraal ahaan waxay adag tahay inaan samayn karno. introduction ama hordhaca chapterkan ayaynu eegi doonaa inagoo define garayn doona ama qeexin doona marka hore waxa ay tahay antenatal care walow marka hore aan soo tilmaanay ee hordhaca casharka aynu bilaabeynay. definition antenatal care is a care given mother during pregnancy. waxaan odhanaynaa waa daryeelka caafimaad ee hooyada la siiyo ama haweenka la siiyo waqtiga uurka ay leeyihiin. antenatal care-ku waa daryeelka la siiyo haweenku waqtiga uurka ay leeyihiin ama waa caawinta loo sameeyo ama waa daawinta la siiyo haweenku waqtiga uurka ay leeyihiin. waxaan ku koobaynaa daaweyn ma odhan karnee waa daryeelka hooyadu hesho waqtiga uurka ay leedahay. in this chapter you will learn about the status of maternal and newborn mortality worldwide. chapterkan ama cutubkan waxaad ku baran doontaa about status xaaladda maternal and newborn mortality xaaladda dhimasho ee hooyada iyo dhallaanka ayaad ku baran doontaa.
worldwide ee adduunka oo dhan in Africa as a whole iyo guud ahaanba Africa. And unfortunately our country we have no more information about antenatal care status. nasiib darrase wadankeena kama hayno xaalad ama xaaladda saxda ah ama sida ay tahay oo xog badan kama hayno adeeg bixinta antenatal care waxa uu yahay. xaggan markaa waxaan isku daynay inaan bal in yaroo Soomaaliya ku qorno walow aanan ay adag tahay inaan Soomaaliya kaga gaarsiino waxa meesha ku qoran oo dhan. markaa waxaan rajeynayaa inaad akhridaan oo sidaas halkaana eegi kartaan wixii af Soomaaliya ku qoran. aynu dul marno si af Soomaali ahaan waxaanu dhici cutubka koowaad wuxuu noqon doonaa planning antenatal care, sida loo qorsheeyo antenatal care-ka ama loo design gareeyo. waynu qeexi doonaa oo waxaan ku qeexinay ANC-du inay tahay ama antenatal care-ku inuu yahay care-ka ama daryeelka hooyada la siiyo intay ku guda jirto ama xilliga uurka. chapter-kan waxaad ku baran doontaa ama aynu ku baran doonaa sida ay tahay maternal and mortality maternal and newborn mortality ayaan idhaahdo dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee adduunka oo dhan guud ahaan Africa, inagoo nasiib darro ku tilmaanay markaa inayna wadankeena ka haynin xog badan oo ANC-da ah ama aynu tilmaami karno sida ay tahay gobol iyo degmo ama guud ahaan dalka sida ay ka tahay. Antenatal care is a professional health care woman receiving through her pregnancy. daryeelka ka horeeya uurka ama daryeelka xilliga uurka waa daryeel caafimaad oo xirfadeed oo hooyadu hesho ama la siiyo xilliga uurka ay leedahay. sidoo kale it is important helping waana caawin muhiima oo lagu xaqiijinayo ama to ensure that woman and newborn baby survive pregnancy and childbirth. waana arrin muhiima baan leenahay oo waxay muhiim u tahay in la caawiyo isla markaana la hubiyo oo la xaqiijiyo in haweeneyda uur kale iyo ilmaheeda labaduba ay ka survive garoobaan ama ay ka badbaadaan uurka iyo dhalmada. waxaan isweydiinaa markaa sidee ama waa maxay ilmaha ama hooyada iyo ilmuhu inay ka badbaadaan uurka. way dhacdaa inuu uurku halis geliyo hooyada, halis caafimaad geliyo, sidoo kale labadiiba way geli karaan bay ka dhigantahay halista caafimaad. macnaheedu waxa weeyaan hooyadu haddii ay uur leedahay ilmaha caloosha ku jiraana caafimaadkeedu qayb ka yahay. sidaa awgeed hooyada iyo ilmuhuba inay ka badbaadaan uurka iyo dhalmada waxay ku xiran tahay marba daryeelka iyo caafimaadinta ay hooyadu hesho. saasaan ku tilmaamaynaa. we show you how to plan. waxaan sidoo kale istusi doonaa sida loo qorsheeyo the antenatal care service adeeg bixinta antenatalka ama ANC-da ama adeeg bixinta waqtiga uurka that the community needs. anagoo markaa eegayna baahida bulshadaada in order to improve si aan u xaqiijino and protect the health of mother caafimaadka hooyada u ilaalino and newborn during pregnancy, childbirth and postnatal period. marka aynu leenahay waxaan ku tusi doonaa sida loo qorsheeyo adeega daryeelka dhalmada ka horeeya ama xilliga uurka ee bulshadaadu u baahan tahay. markaan leenahay sida loo qorsheeyo daryeelka caafimaadka hooyada ee bulshadaadu u baahan tahay inagoo u eegayna improve and protect the health of mother and newborn during pregnancy. inagoo markaa ilaalinayna caafimaadka hooyada iyo ilmaha yar inta lagu guda jiro uurka, dhalmada iyo umusha intaba. macnuhu waxa weeyaan way dhashay hooyadii ama uurkii way ka gudubtay way u dhamaatay. macnuhu maaha calaashan caafimaadkeedii waa tam lama odhan karo. uurkii baan ka gudbinaynaa, dhalmadii baan ka gudbinaynaa, umushiina waan ka gudbinaynaa. calaashan waa haasoo dhan intaa oo steps-kaasoo dhan ama marxaladaha intay marayso waa la soconaa bay ka dhigan tahay. you will learn what is meant by antenatal profile. sidoo kale waxaad baran doontaa waxa loola jeedo antenatal care profile-ka ee bulshada aad ka dhex shaqaynayso and how to calculate iyo sida loo xisaabiyo the number of mothers who are pregnant every year in your catchment area. waxaan sidoo kale eegi doonaa sida loo xisaabiyo tirada haweenka ama tirada hooyooyinka ee uur leh ama uur qaadi kara sanadkiiba catchment area ama meesha aad ku qoran tahay. macnuhu waxa weeyaan meesha aad ka shaqaynaysid sida loo xisaabiyo ama waxa loola jeedo macna ahaan daryeelka bulshada ee sida loo xisaabiyo tirada hooyooyinka uurka leh sanadkaas ama sanadkii uur qaadi kara. waxaanu nidhi aynu dul marna halkaas ANC-du
waa xirfad waa daryeel xirfadeed oo la siiyo haweenku waqtiga uurka ay leeyihiin waana muhiim inaan caawino hubino isla markaana oon hubino waxaan hubinaynaa waxa weeyaan waa hooyada iyo ilmaha labadaba tana sarfa fakarnaan ka badbaadino xilliga uurka iyo dhalmada waxaan sidoo kale istusi doonaa sida loo qorsheeyo antenatal care service-ka ama adeeg bixinta uureyda ee baahida bulshadaada in order to improve and protect the health of mother and newborn during pregnancy, childbirth and postnatal period. Inagoo markaa eegayno xaqiijinayna xaaladda caafimaad ee hooyada iyo ilmaha labadaba inta ay uurka leedahay iyo xilliga dhalmada iyo musha intaba. Waxay soo kala baran doontaa waxa macnaha loola jeedo ama waxa loola jeedo antenatal care profile-ka ee bulshadaada iyo sida loo xisaabiyo tirada dumarka ee uurka leh sanadkiiba meesha aad joogto calaashan catchment area meesha ka shaqeynayso. They will need antenatal care throughout pregnancy. Waxa markaa aan u baahanay waa maxay? Waxay u baahan doonaan ama ay u baahan yihiin haweenku xilliga uurka ay leeyihiin and your expertise supporting during labor, delivery and postnatal period. Xilliga uurka ay leeyihiin oo dhan waxay u baahan yihiin markaa waa maxay? Aan idhaahno halkan ku celiyo. They will need antenatal care throughout pregnancy and your expertise supporting labor, delivery and postnatal period. Waxay u baahan doonaan daryeelka ka horeeya dhalmada ama daryeelka xilliga uurka iyo taageerada khibradeed xilliga foosha dhalmada iyo umusha intaba. Haweenka ayaa u baahan daryeelkan iyo khibradaada intaba xilliga uurka dhalmada iyo sidoo kale umusha intaba. You will also be collecting and reporting data on how many antenatal visit each woman receives. Sidoo kale waxaynu ururin doonaa oo aan ka warbixin doonaa imiso booqasho ay haweeney kastaaba qaadatay and what proportion of births were attended by health professional. Iyo sidoo kale imiso dumara ayaa iska xaadiriyay ama ku ka dhaliyay oo la kulmay xirfad leh. Imiso dumara ayaa la kulmay oo ka dhaliyay xirfad leh. Marka hore waxaan nidhi waxaan u baahanahay ama ay u baahan yihiin haweenku waqtiga uurka ay leeyihiin taageerada khibradeed marka ay dhalayaan iyo marka ay foolanayaan iyo marka inta umushiin intaba. Sidoo kale waxaanu sheegnay inaynu ururin doono ama aan samayn doono oo ka warbixin doono daatada iyo xogta imisa booqasho ayay qaadatay haween kastaaba imisa jeer ayay adeegan qaadatay ama imisa jeer bay xarun caafimaad tagtay iyo tiradii haweenka ee uurka lahaa aynu ogeyn xaddi intee lagama saami intee leeg qof xirfad la ah ka dhaliyay. Waxa inoogu xiga markaas inuu taaban doonaa iyaduna noqon doonaa ciwaankeena labaad maternal and newborn mortality dhimashada hooyada iyo dhallaanka. waxaan ka hadlaynaa waa adeeg bixinta hooyada la siiyo waqtiga uurka ay leedahay laakiin waxa weeyaan waa in marka hore fahmi karno bal intee in leeg oo dun oo hooyo uur leh ayaa dhimata sidaas leeg imisa dhallaana ayaa iyaguna dhinta markaasaynu fahmi karnaa adeegani waxa uu yahay iyo qaabka looga faa'iideysan karo in uga faa'iideyn karno. We begin this chapter inshallah chapterka waxaan ku bilaabi doonaa by describing how many mothers and newborns die. waxaan ku bilaabaynaa cutubkan inagoo sharaxayna inta hooyo ama imise hooyo iyo ilmo yar ayaa dhintay oo u dhintay ama dhimashooda ay natiijadeedu tahay. Complications of pregnancy dhibaatooyin la xiriira uurka or childbirth amaba dhalashada ilmaha waa xilliga foosha around the world adduunka oo dhan. markaan leenahay chapterkan waxaan ku bilaabaynaa inagoo sharaxayna imise haweena iyo caruura baa dhinto oo u dhinta xaalado ka yimaada ama dhibaatooyin ka yimaada uurka iyo sida oo kale dhalmada adduunka oo dhan. The World Health Organization WHO said in the year 2000 to reduce maternal mortality in every country by 3/4. hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan baa waxa ay diyaarisay ama ay samaysay ay aasaastay sanadkii 2000 in la reduce gareeyo ama la dhimo dhimashada hooyada ee wadan kastaba by 3/4 saddex meelood meel inay dhimaan. 2000 ayaa waxaa la diyaariyay qorshe ah in wadan kastaba dhimashada hooyada uu dhimo
laba meeloodoo saddex meeloodoo meel and the mortality of children under 5 years iyo sida oo kale inuu waddan kastaaba dhimo dhimashada caruurta da-du ay ka yartahay 5 sannadood by waxaa loo yaqaano 2/3 saddex meeloodoo laba by the year 2015. halka haddaan si guud u dul marno hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan baa waxa ay qorshaysay ama ay diyaarisay sanadku markuu ahaa 2000 inuu waddan kastaaba dhimo dhimashada hooyada saddex meeloodoo meel ay dhahtee saddex meeloodoo meel halka dhimashada caruurta da-doodu ka yartahay 5 sannadoodna loogu talagalay ama la qorsheeyay waddan kastaaba inuu dhimo saddex meeloodoo laba sanadku markuu gaadho 2015. Your role as a health professional is a vital attaining this goal. Haddaba waxa uu yahay doorkaagu ka xirfadle ahaan ama kaalintaadu ay tahay muhiim u tahay gaadhista hadafkan. marka leenahay waayo hadafka loo baahan yahay la gaadho waa maxay waxaa la yidhi waa in sanadku markuu gaadho 2015 taariikhda buugga la qoray ay qaramada midoobay hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan samaysay qorshayn waddan kastaaba dhimo saddex meeloodoo meel dhimashada hooyada saddex meeloodoo laba dhimashada dhallaanka ka 5 sannadood marka la gaadho 2015 waxaan oog doonaa marka wixii natiijadii ka soo baxday 2015 wixii ka dambeeyay qof kastoo inaga mid yahay uu baari karaa uu heli karaa 2015 maxaa ka fulay qorshaha ah inuu dal kastaaba saddex meeloodoo meel dhimo dhimashada hooyada sidoo kalena saddex meeloodoo laba inuu dhimo dhimashada caruurta da-du ay ka yartahay 5 sannadood. doorka haddaba gaadhista hadafkani waxaad u tahay xirfadle ahaan ama dadkeena xirfadlaha caafimaadka yaqaana ama ku jira fiilka waxaynu ku leenahay door muhiima si loo gaadho hadafka. waxaynu eegi doonaa waxa soo tilmaanay dhimashada hooyada iyo dhallaanka aynu soo tilmaanay oo aynu sheegnay in waddan kastaba loogu talagalay taariikhda marka la dhimo waxaynu imika tilmaami doonaa maternal death and complications dhimashada hooyada iyo sida oo kale dhimashada hooyada iyo dhibaatooyinka keena. waxaan u baahanay waa maxay dhimashada hooyada iyo dhibaatooyinka keena. maternal death also known as maternal mortality dhimashada hooyada sidoo kale waxaa loo yaqaanaa oo aynu odhanaynaa maternal mortality magaca kale siinayna is defined as the death waxaa markaa aynu ku tilmaamaynaa ama aan ku qeexaynaa geerida ama dhimashada of a woman while pregnancy or within 42 days of termination of pregnancy. waxaan odhanaynaa aan ku qeexaynaa waa dhimashada hooyada ee timaada inta lagu guda jiro ama xilliga uurka ama 42 maalmood gudahood dhalashada ilmaha ama soo dhicidda ilmaha dabadeed. marka waxaan odhan halka waa inta umusha lagu jiro umurraaca waxyaabaha keena ama waxyaabaha ugu badan waa waxweyn umurraac baa la yiraahdaa ee haweenku u dhintaan. marka uurkana waa u dhintaan while pregnancy xilliga uurka ay leeyihiin way dhiman karaan or within 42 days amaba 42 maalmood gudahood uurka dabadii. macnuhu waxa weeyaan dhalashadii ilmaha ama soo dhicistii haddii uu abortion ama dhicisaha. haddaba waxaynu eegi doonaa 5 major causes of maternal mortality 5 arrimood ee ugu waaweyn ama 5 arrimood ee sababi kara dhimashada hooyada 5 arrimood ee ugu waaweyn ama 5 arrimood oo sababa dhimashada hooyada. waxayna kala yihiin ayaan odhanaynaa unsafe abortion mar hore waan soo tilmaanay ilmo soo ridid aan ammaan ahayn waxay keentaa hooyadu inay dhimato. macnuhu waxa weeyaan haddii la isku dayo in ilmo ama uur la soo rido oo aanu qof xirfadle ahay soo ridin ama uu isku dayo inuu soo rido waxay noqonaysaa hooyadaas oo dhiman karta. macnuhu waxa weeyaan qofkaan xirfadlaha ahayni wuxuu dhaawac u geysan karaa hooyadii sida oo kale wuxuu gudbin karaa maxay ahdaay infection ama cudur buu gudbin karaa. sida awgeed unsafe abortion waa mid ka mid ah waxyaabaha ay dumarku u dhintaa waliba koobin ka gelin. midda labaad waa maxay eclampsia waynagii mar hore soo tilmaanay eclampsia waxaan odhanaynaa caused by dangerously high blood pressure during pregnancy. waxaa sababa eclampsiada dhiigga oo si khatar ah cadaadiskiisu kor ugu kaco marka hooyadu uurka ay leedahay. waxaa kale oo sababa dhimashada hooyada xilligan obstructive labor waxa la yiraahdo. obstructive labor macnaheedu waxa weeyaan foosha oo istaagta. macnuhu waxa weeyaan way foolatay haweeneydii foosha way socotaa
socodka fooshaasi wuxuu kordhinayaa ama uu keenayaa inuu marba marka ka dambeysa ilmihii yaraa ee caloosha ku jiray soo dhawaado, ilmagaleenka afkiisa isfuro, markastana ay usii dhawaato hooyadu xilligii ay dhal lahayd. sidaa awgeed waxaan ka fahmaynaa obstructive labor waxa weeyaan waa fooshii oo processkeedii ama socodkeedii joojisa. midda xigta ee afraad waa maxay? ee qodobka afraad noqonaya postpartum hemorrhage, waa dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada. macnuhu waa maxay? waa bleeding after child birth, dhiigga yimaada dhalmada dabadeed ayaa la yidhaahdaa postpartum hemorrhage ama BPH. qodobka ugu dambeeya ee shanaad wuxuu noqonayaa puerperal sepsis, oo noqonaya isaguna caabuq yimaada xilliga hooyadu umusha ay tahay, isla markaana la yidhaahdo waa blood stream infection after child birth, waa caabuq ama infection dhiigga raaca. waxaan filaya inaynu si fiican u fahmnay halkaa. waxaanu tilmaanay inuu jiro wax la yidhahdo ama dhimashada hooyada iyo dhibaatooyinka keena. dhimashada hooyada iyo dhibaatooyinka keena macnuhu weeyaan. waxaanu sheegnay maternal death inaynu naqaano maternal mortality inaynu ugu yeeri karno, si isla markaana aynu ku qeexnay dhimashada hooyada waqtiga uurka ay leedahay ama 42 maalmood gudahood uurka dabadii marka ilmuhu dhasho ama uu soo dhaco. 5 arrimood ayaanu tilmaanay oo sababa dhimashada hooyada oo kala ah in ilma soo ridid aan ammaan ahayn, ama la isku dayo uurka oo la soo rido oo aanu soo ridin qof xirfadle ahi, ayaan odhanay waa safe abortion. eclampsia ayaanu tilmaanay oo ah sabab u tahay dhiigga oo si khatar ah cadaadiskiisu kor ugu kaco waqtiga hooyada uurka ay leedahay. obstructive labor baanu tilmaanay ama foosha oo joogsata xilliga hooyadu ay foolanayso ama socodkii foosha oo meesha ka baxa. waxaa kaloonu sheegnay waxa loo yaqaano postpartum hemorrhage ama dhiigbaxa dhalmada ka dambeeya inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha dhimashada hooyada keena. puerperal sepsis oo aanu ku sheegnay isagana inuu yahay blood stream infection after child birth ama dhiigga oo infection raaco dhalashada ilmaha kadib. waxaan rajeynayaa inaynu intaas aynu si fiican soo faahfaahinay, isla markaana waxaan ka cudur daaranaynaa inay bataan oo videoga aan daawayna ama casharka aan duubayna markasta inuu noqdo cashar fara badan oo boorina. waxaan isku daynaa inaan koobkoobno sharaxaadana aan isku dayno sida ugu habboon inaan soo gudbino wixii maxaan ahaday aan ka cudur daaranaynaa khaladada ama error naga dhacay. sidaa awgeed waxaan idinka xuseynaa qof kastoo muuqaalkan soo gaadho inuu wixii commentiga xagga hoose noogu reebo, sidoo kale wixii talawna siinayo xagga hoose noogu reebo. taladiinu waa noo muhiim, commentiga ay noogu reebi kartaan. mar labaad waxaan idinka xuseynaa markaa qof kasta uu soo gaadho muuqaalkani inuu channelka subscribe gareeyo si muuqaalada xiga ama casharada xigaana ay noqdaan kuwo markaan soo gelinaba soo gaadha. aad waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.